بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan asxaabta ku xiran kanaalkan Bara Chemistry, maalin wanaagsan, isku soo noqod wanaagsan. weli waxaan dhexda uga jirnaa jabtarkii ahaa hydrocarbons ama hydrocarbonada. maantana waxaan qaadanaynaa cashirka 12aad haddii alla idmo. cashirka 12aad wuxuu ka bilaabanayaa ama ciwaankiisu wuxuu yahay how to write or draw the structure of alkanes. sidee loo qoraa ama loo sawiraa qaab dhismeedka alkaneska. ardayow haddii lagu yiraahdo draw the structure ama write the structure waa isku mid, waa uun qor qaab dhismeedka. name aa lagu siinaa magac, structure aa lagaa rabaa. waxaan u shaqaynaynaa opposite, cagsi. cashirkan kii ka horreeyey waxaan soo aragnay how to name the structure, sidee qaab dhismeed loo magacaabaa. structurekaa lagu siinaayey, magacaa lagaa rabay, name aa lagaa rabay. hadda namekia lagu siinaa, magaciyaa lagu siinaa, structurekia lagaa rabaa. marka waxaan u shaqaynaynaa si cagsi ah ama opposite. waayahay, halkan waxaa kuugu qoran ama aan ku soo diyaariyey xeerar kaa saacidaya ama kaa caawinaya in haddii lagu siiyo name ama magac aad awood u yeelato inaad qori kartid structure, qaab dhismeed. xeerarkan kuma yaallaan buugga, macallimiintana inta badan afkay ka sheegaan. sidaas daraaddeed intaan afka ka sheegi lahaa, qoraalna waa kuu sameeyey, afkana waa ka sheegaya. qoraalkana baaqiyuu kuu noqonayaa oo cashirkuu kuugu dhex oolayaa. waayahay, rules for drawing the structure of alkanes. xeerarka la isticmaalo marka la sawiraayo ama la qoraayo qaab dhismeedka alkaneska. okay, xeerka koowaad, number 1, draw the parent chain as a straight chain of carbon atoms. sawiraa lagu yiri ama qor parent chainka ama longest chain, silsilada ugu dheer ama silsilada ugu kaarbonada badan, u qor as a straight chain, silsilad toosan oo of carbon atoms ah, oo carbon atomyo ka kooban keliya, without hydrogen, hydrogen la-aan kaarbonadii qor. numbered, adigoo number ku dul qoraya kaarboonka korkiisa. hydrogenka maaha, waa kaarboonka. from left to right, qoraalkana ka bilaabaya bidix ilaa midig, or ama vice versa, taas cagsigeeda. from right to leftna waa dhihi kartaa. midigaa ka bilaabi kartaa, bidixaa u socon kartaa, ama bidixaa ka bilaabi kartaa, midigaa u socon kartaa. marka numberka aa ku dul qoraysa kaarboonka dushiisa. waayahay, xeerka labaad, attach all branches. ku dheji dhammaan laamaha. haddii parent chainka uu leeyahay branches, laamo hadduu leeyahay, laamahoo dhan ku wada dhejiyaa lagu yiri. wixii laamo ah ku dheji. intee ku dhejinay? their numbered locations, boosaska ay nambarkoodu ku qoran yihiin, kuwaasoo ka tirsan on the parent chain, silsilada ugu kaarbonada badan ama silsilada ugu dheer. 3, add enough hydrogen atoms. kadib ku dar hydrogeno ku filan to show, si aad u tusiso ama aad u muujiso that each carbon atom,
carbon atom kasta has in uu lahaado ama uu yeesho 4 single bonds afar dabar oo mid mid ah ilaa waa ognahay carbon inuu sameeyo ugu badnaan afar dabar oo ah afartii dabar ama afartii gacmood ee uu wax ku qabsan lahaa waaya heerka afraad attach 3 hydrogen atoms ku dheji 3 hydrogen atom to each of the corner carbon atoms kaarboonada geesaha ku dhegan midka bidix maaragtay ku dhegan iyo midka midig ku dhegan if they are not attached haddaysan ku sii dheganayn iyaga to a branch laan or branches ama laamo 3 hydrogen waxay ku dhegi karaan keliya haddaysan branch lahayn ama hal branch ama 3 branch ay qaadan karaan kale haddaysan branch lahayn 3 hydrogen ku dhejinay haddii hal branch uu ku dhego 3 hydrogen hal hydrogen go'aysa 2 hydrogen ku dhejinay haddii 2 branch ay ku dhegto 2 hydrogen go'aysa 3 hydrogen hal hydrogen ku dhejinay haddii 3 branch ay ku dhegtana wax hydrogen ku dhejinaysa ina isfahamna umalayna ardayo number 5 attach 2 hydrogen atoms ku dheji 2 hydrogen atom to each of the center carbon atoms mid kasta oo ka mid ah kaarboonada dhexda ku jira labadii geesood waa soo sheegnay dhexda kuwa ku jira min 2 hydrogen ku dheji goormee lagu dhejinaa if they are not attached haddaysan ku dheganayn iyagana to a branch wax laan ah or branches ama laamo iyaga maxaa ku dhegi kara marka maximum 2 branches ku dhegi karta ugu badnaan 2 laamood ugu yaraana hal laan 2 hydrogen ku dhegi lahayd hal laan haddii ay ku dhegto hal hydrogen go'aysa hal hydrogen bas ku dhejinaysa haddii 2 branch ay ku dhegaana labadii hydrogen ku dhejin lahayd waa baaba'day wax hydrogen oo ku dhejinaysid ma jiraan ardayo 6 make sure iska hubi that each carbon atom in carbon atom kasta has uu leeyahay 4 bonds afar dabar ama 4 single bonds afar dabar oo mid mid ah ardayo sharciyadii aan ugu talagalay in ay kugu fududaadaan markii aad structure sawiraysid ama markii structure aad qoraysid intaas ayay ku egyihiin hadda waxaan hore u gelaynaa inaan qaadano 3 example haddii alla idmo example ugu horeeya example number 1 waxaa lagu yiri draw or write the structure of 2 ethyl 4 methyl pentane structure kaas sawiraa lagu dhaha ama qor waayahay ardayo xeer kalan kuugu dara mar kasta oo aad qoraysid structure waxaad ka bilowdaa parent chain nameka magaca silsilada ugu dheer ama magaca waalidka ah hore waxaan kuugu soo sheegay adiga aabbaha iyo adiga in always magacaaga uu ka horeeya ka aabbahana u dambeeyo hadda pentane is parent chain waa magacii waalidka ahaa laakiin ilmihii ay dhashay ama laamihii ay iyada dhashay ama iyada ka soo farcamay waa 2 ethyl iyo 4 methyl marka always iyadaa dambaysa ilmahana way soo horeeyaan that is why loo dhahay parent chain adiga aabbaha iyo adiga magacaagaa soo horeeya aabbaha magaciisa dambeeya marka chemistry-gana magacaabistaan meesha ay parent chain ka timid waa halkaasay isaga mid yihiin ardayo laakiin waalid ku jira chemistry ma jiro laakiin waa isku qaab
waayahay markasta oo aa structure dhigaysid ka bilow parent chainka bentane imise carbon waay aan isweydiino waa 5 carbon atoms 5 carbon atom 5 carbon atom oo hydrogen la'aan qor adigoo u dhaxaysiinaya single bond aan qorno 1 2 3 4 5 number ku dul qor adigoo ka bilaabaya from left to right or from right to left midkaa rabto waayahay ani waxaan doortay inaan ka bilaabo left oo aan u socdo right 2 3 4 5 hadda baranjiskii ku dhedheji laba baranjiyaa meeshaan taalla kaarboonka labaad waa lagu dhegan yahay ethyl ku dhegan kaarboonka afraadna waa lagu dhegan yahay methyl ku dhegan aan ku dhejino ardayoo kor ma isticmaalayay waayaan u isticmaali waayay numbersaan ku dhigtay laakiin ogow kor iyo hoos labadaba waa isticmaali kartaa laakiin dhex ma isticmaali kartid hadda aniga kor numberskaa u daynaa hoosaa iska isticmaalaa laakiin ogow inaad korna isticmaali kartid hoosna isticmaali kartid waayahay 2 ethyl kaarboonka labaad ethyl ku dheji ethyl waa laba kaarboonay ka kooban tahay alkyl group ka kooban laba kaarboon waa laba siyaabood waa loo qori karaa si shorti ah oo gaaban annagoo dhahayna C2H5 sidaas ugu qori karnaa or CH2 CH3 waa isku mid hydrogenada isku dar 2 plus 3 waa 5 laba kaarboon isku dar waa 2 middaa doonta ku dheji waayahay middaana iska qaadanaynaa CH2 CH3 kaarboonka afraad tag methyl ku dheji methyl waa CH3 weli hoosaan iska isticmaalaa kor numberaa iigu yaal laakiin ogow labadaba kor waa geen karaa haddaan rabo midaan kor geen karaa midaan hoos keeni karaa labadaba hoosaan geen karaa waa isku mid hadda hydrogenada buuxi hydrogenada sida loo buuxiyo hadda ayaan ku soo baray xeerarkaan kugu soo baray labada geesaha haddaan lagu dheganayn min 3 hydrogen laguma dhegana min 3 hydrogen halkaana waa ku qori karaa intana waa ku qori karaa 3 hydrogen igu dheji kana 3 hydrogen intana waa ku dhejin karaa intana waa ku dhejin karaa kuwa dhexda min 2 hydrogen aan ku dhahay haddaan lagu dheganayn kana waa lagu dhegan yahay kana waa lagu dhegan yahay laakiin kan keliyaan lagu dheganayn marka kan laguma dhegana asaga haddaan lagu dheganayn kuwa dhexda ah min 2 qaadan karaan kan labadiisa si ku dheji midkan hal baranjiyaa ku dhegan haddii hal baranji uu ku dhegan yahay 2 hydrogenaa lagu dhejin lahaa haddaan lagu dheganayn hadda hal hydrogen way go'day baranjigaanaa cunay si kale haddaan u dhahno baranjiyada tiri 1 2 3 kaarboon 4 baranjiyuu samayn karaa ugu badnaan meeqaa u hartay halka booskeeda hal hydrogenaa gelaysa qaabkaasna waa loo xisaabin karaa hal hydrogen ku dheji kan tag 1 2 3 hal baranjiyaa u haray hal hydrogen waa haddii kale waxaan dhihi karnaa hal baranjiyaa ku dhegan 2 hydrogenaa lagu dhejin lahaa hal hydrogen waxaa cunaaya ama qaadanaya baranjiga ku dhegan hal hydrogenaa usoo horta waata haddii kale kuwan bixisaabi ardayow structureka nala ka rabay inaan qorno oo qoraalkiisu uu ahaa 2 ethyl 4 methyl bentane qaabkaasaa loo qoraa aan u gudubno exampleka labaad example number 2 draw or write the structure qor ama sawir qaab dhismeedka 3 bromo 4 chlorohexane aan u kala saarno
parent chain iyo alkyl groups waalidkii iyo ilmihii always magaca ugu dambeeya soo qaado ee parent chainka hexane 6 carbon atoms qor 6 carbon atom qor 1 2 3 4 5 6 number ku dul qor kaarboonada markaan waxaan ka bilaabayaa from right to left inay isku mid tahan ku tusinaa meeshaa rabta ka bilaab adigaa xor ah marba haddaad daroowey samaynaysid adigaa xor ah hoosaan isticmaalayaa haddana kor number ay ugu qoran laakiin ogow korna waa la isticmaali karaa 3 bromo 3 bromo ku dhaji waa kan waa dhihi karaa intaan ka bixiyo line waa ku dhejin karaa laakiin wuu ka qalloocana hoosaan iska isticmaalaa korna waa la isticmaali karaa bromo b capital r small okay 4 chloro c capital l small waa dhamaatay hydrogenada buuxi labada geesaha haddaan lagu dheganayn min 3 hydrogen c ku dheji halkaana waa looga dhejin karaa intana waa looga dhejin karaa cafwan waa iga weynaatay waayahay kuwa dhexda haddaan lagu dheganayn min 2 kan laguma dhegana kanna laguma dhegana kan waa lagu dhegan yahay hal baranjiya ku dhegan 2 hydrogen uu yeelan lahaa hal way ka go-e maxaa cunaaya baranjigaana cunaaya goosanaya halaa soo hartay haddii kale 1 2 3 hal baranjiya ku haray labadaas qaab midaad doonto u xisaabi halka hydrogen ku dheji haddana hal baranjiya ku dhegan haddaan lagu dheganayn 2 hydrogen oo lahaan lahaa halkii baranji hal hydrogen ee goosane hal hydrogen u hartay si kale haddaan u xisaabino 3 baranji waay 1 2 3 hal baranjiya u haray hal hydrogen ku dheji ardayo structureki 3 bromo 4 chlorohexane asagana qaabkaas ayaa loo qoraa exampleka 3aad tusaalaha 3aad write the full structural qor qaab dhismeed ballaaran ama la ballaariyey uncondensed structure iyo qaab dhismeed la isku ciriiriyey condense uncondensed structural formula for octane ee uu leeyahay isku dhiska octane oo loo qoro C8H18 ama 8 carbon iyo 18 hydrogen ama 18 hydrogen waayahay organic chemistry waxaan ku soo baranay sanadkii hore marka form 3 ga ahaydeen chapter 7 oo ka hadlayay introduction to organic chemistry waxaan ku soo baranay in ay jiraan 3 structure oo organic compoundska loo qori karo midka ugu horeeya waxaa lagu magacaabayay molecular formula ama molecular structure molecular structure عفوا molecular structure midka labaad waxaa la dhahayay ama lagu magacaabayo condensed structure midka saddexaadna waxaa la dhahayay full structural or expanded structure
full structural oo la mida expanded qaab dhismeed la ballaariyey waayahay hadda waxaa nala ka rabaa octane nala siiyey molecular formulaheeda nanes moleculekeeda markaan octane waxay u qoran tahay number 1 oo kale waa molecular qaab dhismeedkaasi u qoran tahay labadan kalena waa nala weydiiyey inaan qorno full maaragtay structural iyo condensed structural formula labadaasaan nala ka rabaa waayahay solution xallin to write si loo qoro the full structural formula for octane qaab dhismeedka octane oo la ballaariyey si loo qoro step 1 tallaabada koowaad write out the carbon atoms of the parent chain waxaad qortaa parent chainka silsilada waalidka ah ama silsilada ugu dheer ama longest chain kaarboonada ay ka kooban tahay qor oo hydrogen la'aan ah iyo kaligood qor adigoo u dhaxaysiinaya single bond waayahay annaga 8 kaarboon waaye wax aan qorayno 8 waa kuwan 1 2 3 4 5 6 7 8 si straight u qoraysaa single bond oo u dhaxaysiinaysaa xariiqa u dhaxaysiinaysaa waayahay waxaa nala ka rabaa inaan ku dhajino 8 iyo 10 hydrogen ama 10 iyo 8 hydrogen inaan ku dhajinaa nala ka rabaa stepka labaad add hydrogen atoms ku dar hydrogen atoms ku dar kaarboonadii aan stepkii koowaad kusoo qornay ee kaligood ahaa so that si all carbon atoms dhammaan atamyada kaarboonka ah half ay u yeeshaan 4 bonds 4 dabar kaarboonka wuxuu sameeyaa 4 dabar mid walbaba kaarboonada ku dhajiyaa lagu yiri si uu ku yeesho 4 dabar waayahay sida hydrogenada loogu dhajiyo waa soo baranay cashirkan qaybtiisa horan kugu soo baray ruliski labada kaarboon ee geeska ugu xiga kuwan waxaa ku dhajinaysaa min 3 hydrogen mid kasta oo ka mida kuwa dhexda ku jirana waxaa ku dhajinaysaa min 2 hydrogen ilaan hadda wax baranji ah annaga noogama dhegana kaarboono khali ah oo kaligooda ayaan maaragtay buuxiyana la dhahay ku dara hydrogen atoms la dhahay marka xeerkiyaa raacaysaa simbali si fudud 8 iyo 10 hydrogena laga rabaa inaad ku dhajisid 8 kaarboon okay labada geesaha ah right iyo left min 3 ku dhajiye total meeqa waay 6 hydrogen aan haystaa 8 iyo 10 6 hadii laga gooyo ama laga jaro 12 hydrogen hartay labadaas kaarboon markii aan ka gooyo 8 kaarboon 6 hartay 6da dhexda ku jirta midkiiba waxaa ku dhagayso 2 hydrogen marka 6 times 2 meeqa waay waa 12 plus labada dhinacood min 3 waa 6 isugee waa 18 sidaasaa 18 kiina aan ku qornay marka saa u jeedaan kuwa dhexda ku jira mid kasta waxaa ku dhagan 2 hydrogen qaabkan markii loo qoro waxaa loo yaqaanaa full structural or expanded structure waa qaab dhismeedka octane oo la ballaariyey expanded or full structural midkaa rabta dheh sidan waa qaab dhismeedka lagu sheegayo waayahay markaan waxaan u gudbaynaa condensed structure qaab dhismeedkiis kale ee nala weydiiyey inaan u qorno octane stepka saddexaad tallaabada saddexaadaan u gudbaynaa marka to write si loo qoro the condensed structure qaab dhismeedkii laysku ciriiriyey condense write the hydrogen atoms
for hydrogen atoms bounded hydrogen atomiska ku dhegdhegan ama dabarka la samaynayo each carbon kasta directly si toos ah u qor adigoo ku qoraya to the right meel midigta ka ah of the carbon atomka meel midig ka ah waxaan ku bilaabaynaa labada geesaha ah ama geeska bidixaan ka bilaabaynaa kaarboonka ku dhegan 3 hydrogen ku dhejinay kaarboonka waa kan hydrogenkii midigaan uga dhejinay maxaan samaynaynaa marka hydrogenada meeqay ahaayeen 3 ay ahaayeen mid ka mid aan ku dhejinaynaa 3 ay ahaayeen 3da maxaan samaynaynaa marka tirada 3da ah use subscript u isticmaal hoosgale to indicate si aad u muujisid the correct number tirada saxda ah of hydrogen atoms ee hydrogen atomiska ah ee kaarboonkaas ku dhegan kaarboonka ugu horeeya 3 baa ku dhegan kaarboonki aan dhignay hydrogenka midigaan ka dhignay laakiin 3 ku dhegan 3dana subscript aan ka dhignay hoosgale wataas marka CH3 ay noqonay 6da dhexda ku jirta mid kastaba mid 2 hydrogen ku dhegan 6doodi waa kuwan kaarboonki aan dhignay hydrogenki aan dhignay meeqa hydrogen ku dhegan kan ugu horeeya 2 labadii hoosgalaan ka dhignay subscript sidaas ayaa 6dii dhexda ku jirtayna aad u samaynaysaa mid kasta oo kaarboonada dhexda ku jira ah 2 hydrogen ku dhegan labadiisa hydrogen aad dhigaysaa hoosgale ama subscript uga dhigaysaa labadii wakaas midka ugu dambeeya ee right-ka u jira midigta u jira kaarboonkiisa waa kan 3 hydrogen mid ka mid a midig ku dhig 3 waaye tiradii 3 ahaydna hoosgale uga dhig ama subscript noocan structure markii loo qorana waxaa loo yaqaanaa condensed structure cashirkeennii maanta oo aan ku soo qaadanay how to draw or how to write sida loo sawiro ama sida loo qoro the structure of alkanes qaab dhismeeska alkaniska intaas ayuu noogu egyahay waxaa kaloo cashirkan ku qaadatay 3 example ama 3 tusaale qaybta hore cashirkana waxaad ku soo baratay rules xeerarkaas oo aan kugu baraayay sida loo buuxiyo hydrogenada ama sida kaarboonada loogu daro hydrogenada waxaan ku soo sheegnay labada kaarboon ee geesaha ah inaad ku dhejinaysid mid 3 hydrogen atom haddii aysan branch ku dheganayn kuwa dhexda ku jirana inay qaadanayaan mid 2 sida kuwa hadda meeshan kaaga muuqdo oo kale mid 2 hydrogen in lagu dhejinayo cashirkeennii maanta intaas ayuu ku egyahay haddii ay tahay markii kuugu horreysay ee aad soo booqato kanaalkan Baraka Mystery fadlan subscribe like share commentary ka bixi page-ka aan ku leenahay Facebook page-kana fadlan soo follow garee haddii aad ka mid tahay asxaabtii hore ugu xirneedna fadlan like-ta badi share-ta badi oo asxaabtaada u sii faa'iiday u share garee commentary ka bixi page-ka aan ku leenahay Facebook page-kana fadlan soo follow garee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته